رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن بدن أيو إنو أماني نبينا عليه الصلاة والسلام نونبه الريح حسك إلهي إن أنه كفى إذي سنه تانا واحد سنها يا حديثك أبي الدرداء والنبي كوري صلى الله وسلم عليه والنبي ويري ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى وحير نبينا صلى الله وسلم عليه ما دين كجور ما عملات سميسان كانوا ugu khayr badan boqorka ilaahay amalka ila agtiisa ugu qaalisan ugu darajada sareeya idin kaga khayr badan dahab iyo fido inaad sadaqaysataan idin kaga khayr badan cadawgiina gaalada inaad la kulantaan oo qoorta aad ka goysaan iyaguna ay qoorta idin ka gooyaan saxaabadii waxay yiraahdeen ha wanu jacalay rasuulka ilaahay wuxuu nabiga sallallahu sallam alayhi dhikrullahi ta'ala kaasi waa xuska ilaahay waa ajiib ذكر إلهي وحو كفضل بديي سيدي حديث كان ونبي نوغو عدي صلى الله وسلم عليه وحو كفضل بديي صدقتي وشيء لا صدقيستو كان ugu qaalisan la sadaqaysto dahab iyo fidda la bixiyo wuxuu ka khayr badiyay jihaadkii oo nabigu uu ku tilmaamay sallallahu wasallam alayhi dhirwatu al-islam yani meesha islaamka ugu macaan ugu qaalisan وأعماشا كوغا ugu weyn ku jira ayuu xataa dhikriga ilaahay uu ka fadli badiyay sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam